wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo ay u heliyaan taliyaha ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha Admiral Cabdixamiid Dirir iyo agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ahna kusimaha agaasimaha guud Maxamuud Cali Axmed Fanax ayaa kormeer shaqo waxa ay ku tageen xarunta wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya halka oo kulamo ay kula qaateen wasiirka wasaaraddaas Marwo Maryan Aweys iyo xubno kale oo qayb ka ah wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya kulanka ujeedkiisu oo ahaa dardargelinta howlaha baaxadda leh ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha Soomaaliya ayaa markii uu soo idlaaday waxa warbaahinta la hadlay taliyaha ciidanka badda Admiral Cabdixamiid Dirir. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. maanta waanu kormeer aanu shaqo ku tagnay anigoo ugu wehelinaya wasiirkii gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya annagoo soo indhaynayna dardargelinta iyo xaaladaha ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya waxaanu kormeer ku tagnay dekedda oo aanu halka kula kulanay wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda iyo agaasimayaasha iyo dhammaan shaqaalaha ay wasaaraddaas oo aanu si fiican uga wada hadalnay qaabkii ciidamada iyo maaragtay wada shaqaynta aanu u dardargelin lahayn runtiina waxay noogu soo dhamaatay guul iyo farxad waxaan rajeyn doonaa insha Allah inay ciidamadii badda ama difaaci xeebaha Soomaaliya ay insha Allah si buuxda ay u shaqayn doonaan ummaduna ay ku farxi doonto hadii Allah uu dalaymo sida ay dalkooda iyo ummadooda ay ugu shaqayn doonaan aysan noqon doonin badda Soomaaliya mid iska furan oo cid walba ay soo gasho wixii xilligan ka dambeeya lana gaaray xilligii ay Soomaaliya ay ka faa'iideysan lahayd kheyraadkeeda iyo waxyaalaha ku jira ayna ilaashan doonto meelaha ay iyadu ay leedahay xuduudaha marka aad baan ugu faraxsanayn kulay wixii kale oo warbixinaa ama sidoo ahaa kormeerkaygaasi waxa ka sii hadli doona wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya marka waxaan leeyahay maanta kormeerkaygu intaas oo ahaa dardargelinta ciidamada iyo sidii wasaaradda iyo ciidanka badda iyo difaaca xeebuhu ay wada shaqayntooda iyo si xoojin lahaayeen aad baan ugu faraxsanahay guul fiican bayna noogu soo dhamaatay. dhanka kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa tilmaamay in kulankan uu ahaa mid miro dhal ah oo lagu xoojinayay howlaha shaqo ee ciidanka badda iyo ilaalinta xeebaha Soomaaliya. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. ayadoo laga duulayo dib u habeynta ciidamada qalabka sida guud ahaan khaas ahaan ciidamada badda iyo ilaalinta xeebaha waxaan maanta aan ku tagnay aniga iyo taliyaha ciidamada badda wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda halkaas oo aan kula kulagnay wasiirada iyo howlwadeennada wasaaradda waxaana ka wada hadalnay si loo dardargelin lahaa ciidamada badda iyo siday u ilaalin lahaayeen guud ahaan gaadiidka badda iyo badda guud ahaan waxaana run ahaantii aad iyo aad aan isku bogaadinay shaqada hadda ay hayaan ciidamada badda waxaana ka wada hadalnay sidii loo taakulayn lahaa ciidamada badda iyo dib u habeyn lagu sameyn lahaa waana kormeerkan wuxuu ahaa kormeer miradhal ah waxaana insha Allah ka shaqayn doonaa ciidamada badda sidii waajibkooda sharci ay u gudan lahaayeen dalka guud ahaan khaas ahaan xeebaha dalkeena iyo meelaha ciidamada ay ka joogaan si khaas ana kuwa jooga dekedda Muqdisho ayagana tayadooda la kordhiyo si fiican maaragtay loo tababaro marka kormeerkanaga wuxuu ahaa kormeer guul ku soo dhamaaday waxaan ummadda Soomaaliya u rajaynaynaa insha Allah inaan helno ciidan bad oo dalkeena difaaci karo insha Allah. xubnahan ayaa kormeeray qaybo kamid ah dekedda Muqdisho iyo xarumaha ciidanka badda iyo ilaalinta xeebaha halkaas oo laga hago howlgalinta ciidanka badda marka ay howlgallada ka sameynayaan xeebaha Soomaaliya. wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka duuleysa dib u habeynta iyo tayeynta ciidamada ayaa wada qorshe ballaaran oo ciidamada badda lagu horumarinayo sida ay tilmaameen mas'uuliyiintii kulanka ka qayb gashay.